السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن وناكسن إذا لهانتين با ميل كستان نقا داوانيسان كوسو دوادا شنال كاميرا خطرة بودكاست ما أنت توبقين وحاوية الصومالية كفسيقا محاي شرعي وقسو ساروي ساينو أقنا هايبا دلالك كالي أدون كشرعي أياك يالا كفسيقا أما أني كرايم أو أدكشي هاسايا شيء دالك الصومالية أياد موداينانو وح شرعي كسو سارين كفسيقا sababtoo ah maalin walba waxaa sii kordhaya kufsiga waxaa sii badanaya dhibaatada loo geysta caruuraha weliba hadda waxaa aad iyo aad inoogu badan kufsiga wiilasha kii gabdhaha waa laga soo gudbay kufsi wiilal baa la maraya saad ogeydeenba baryahan waxaad arkayseen wiil yar oo aan u malaynayo 7 jir ama 6 jir ahaa oo nin weyn oo aan u malaynayo inuu macalinkiisa ahaan inuu kufsaday ninkaas oo aad moodid jiirikaan markaan ku leeyahay jiirikaan qofkaan aqoon waxaa waaye aagadaha waaweyn wax lagu gurto ama dalalka Yurub lagu dhoofiyo alaabada ninka from here to halkaas adigu iska jiirigaanka wad garanaysaan aagadahaas qaabka u samaysan yihiin taa waxa ka sii daran ninkaas wuxuu qabaa laba naagood ninka wiilka yar faraxumeeyay wuxuu qabaa laba naagood haddaba dalka Soomaaliya ayaa qarnigan aynu maanta ku sugannahay ilaa qarnigii Soomaali dhashay odaygii Soomaali weeye wax sharci ah ka soo saarin kufsiga sababtaas ayaa keentay inay maalinba maalinta ka dambayso sii korodho xadkana sii dhaafto kufsi wuxuu ku bilowday kufsi gabdho xoogaa laaleeg waxaa ku xiga kufsi gabdho yaryar waxaa ku sii xiga kufsi gabdho yaryar oo haddana la sii dilo hadda waxaynu maraynaa kufsigii wiilasha inkastoo yarayd waagii horeba wiilasha kufsigeedu uu jiray balse ay yarayd haddase aad iyo aad ayay u soo noqnoqotay dacwadaas laga soo oogayo ragga ee ah kufsiga wiilasha ma arkin weli ma arag nin ka hadlaya kufsi noocu dooraha ahaado weli ma arag culumo ka hadlaysa kufsi weli ma arag dawlad ka hadlaysa kufsi weli ma arag wax garad ka hadlaya kufsi laakiin waxyaalo kale oo loo baahnayn oo simple ah oo xitaa diintu aanay farin ka hadla way ka hadlaanay waxa nasiib darro ah hadaba idinkoo rag waaweyna caruurihiina idin hoos joogay in hortiina lagu kufsado aad daawanaysaa aydina waxba ka oran karin aydinaan ka hadli karin kii dhalay aanu ka hadlayn kuu dhalay hadday gabar tahayna kii kufsaday buuba u guurinaya hadday qaangaar tahay haddii kalena gurigu ku haysanaya xoogaa yaroo lacag yar iyo shifa yar baa la siinaya adigu yaanaan hadal idinku daalinayne halkaas waxaad aragtaa in xaqii caruurta iyo dumarkuba uu ku lumay sababta Soomaaliyana ilaa hadda la deglaadahay waa dhibaatooyinkaas iyo hooyooyinka iyo ubadka ka dhex ooyaya dalka gudihiisa waxaan leeyahay oo aan la hadlayaa oo aan faraya fariintan dawladda Soomaaliya dawlad goboleed kasta wax garad kasta culumo kasta oo Soomaaliyeed oo afka Soomaaliga ku hadasha waxaan leeyahay arrintaas laga kaco sida ugu dhaqsaha badan waa in sharci looga soo saaro sababta sida maaha si loo dul qaadan karo marka dambe waxaa iman doonta idinkoo guryihiina jooga in loo yimaado caruurihiina iyo xaasaskiina oo laydinku hor kufsado haddaydinaan maanta iska waxaa la yidhi daadku intaanu ku soo gaadhin baa la iska moosaa marka waxaan idin leeyahay maanta weli rajaynu leenahay weli rajo ayaynu leenahay aynu wax ku qaban karno weli rajo ayaynu leenahay aynu go'aan adag ku qaadan karno weli waxaynu leenahay waqti aynu ku samayn karno sharci adag oo nimankaas sidaa u dhaqmaya meel la iskaga saari lahaa nin ilmo yar kufsaday gebigiisa waa in dil toogashaa lagu xukumaa anigu horta saasaan oran lahaa ama ha yaraado ama ha weynaado wiil yar ama gabar yar ha ahaado ninkii ilmo yar kufsada waa in la toogtaa wuu yaraanayaa haddii dil toogasho haddaad dili maysaanoo nin weeye waa nin boqolla ah laakiin wiilkan yar ee la kufsaday isaga ma aragtaan koos ma hadli karo waa ilmo yar gabadhanina waaba naag iyadoo xaq iyo xuquuq ay dunida ku leedahay maba jirto xaqii caruurta waa lagu baabi'iyay wax allaale wax sharci iyo xaq iyo xuquuq ay ku leeyihiin nama jirto maanta haddii nin aad isqabataan ninkaa lala jirsanaya ilaahumuu yuhuudi ahaado ninkay kaa xigsanaya nimanka Soomaaliyeed nin Soomaaliyeed iska daaya ninka yuhuudiga ah way kaa xigsanaya heerkaasaynu maraynaa war maxaynu u sugnaa in dalkeenu hagaago saynu u sugnaa in waddan nabada oo wanaagsan ilaahay ina siiyo seebaynu u sugnaa in dalkeenu hagaago
oo dadkeenu hagaagaan oo cadowgu alla inaga qabto saynu u sugnaa sugmayno sababta inagiiba cadow isku ah inagiiba isxasuuqayna qof waxaanu galabsan iyo qabiil aanu ka dhalan oo ilaahay u yeelay ilaahay ka dhaliyey aanu isagu dooran baad ku abayustaan caruurta caruurnimaad ku abayustaan dumarku iyo xooluhu xoolaha idin qiimo badan waxaa weeye waxyaalahaasoo badan iyo so many discrimination iyo crimes hoose aan la ogeyn baa jira oo dalka ka socda aan dibaddana loo soo saarin inta la qarinayo ayaa badan iyo inta hadlaysa inta qarsanaysa dhibaatada ayaa ka badan inta babliga la imanaysa odhanaysa wiil baa layga kufsaday gabadh baa layga kufsaday maanta waxaan arkayay reer hadalkooda aad iyo aad ii taabtay gabadha waxay leedahay anagu de waxba cidina noo qaban mayso looma ooyaan baanu naho reer xamar baanu naho aad iyo aad baan uga xumahay waa dad soomaaliyeed waa dad soomaali u dhashay original meeshii la doonaha laga yimaado soomaali oo dhan baa collectiona oo adduunka isaga timi africa ka timi carab ka timi meelo badan ka yimi waddan soomaaliyeed baynu noqonay soomaali baynuna nahay soomaali baynuna nahay sooma idin garan marka waxaa weeye xuquubada ummadda islaameed laga gelayo ha la iska daayo ayaan anigu odhan lahaa si dalku inoogu dego si dalku inoogu qaboobo si balaayada iyo sharka iyo waxa inagu soo socdaa ilaahay inooga qabto wixii caqligiisu shaqaynayo min fadla kufsiga ha laga keeno sharci adag haddii kale dee saas ayaad ku jiraysaan saasaa soomaaliya u dhibaataysnaanaysaan saas ayaad soomaaliyay u dhibaataysnaanaysaan saasaad weligiin u balanbalaysaan saasaad labalaba isugu haysataan saasaad labalaba isugu cunaysaan idinka ayaa isdulaynaya oo isbaabi'inaya sababtoo ah innagiibaa cuqubo iska gelayna innagiibaa isabayuusayna innagiibaa isdhibaataynayna innagiibaa keena miskiinka ah rabin innagiibaa kii xanuunsan rabin innagiibaa qabiilada qaar rabin innagiibaa dee maxay rabin innagiibaa dee innagii uun baynu isku noqonay wixiiba waa innagii hadda meel ma kala jirno innagiibaa saa isu cunayna innagiibaa saa isu jaqayna innagiibaa juudaanle isku noqonay innagiibaa reerba reer ku reeran yahay sababta waa cuqubadaas wax kale maaha wax kale oo idin haya ma jirto soomaaliya waxaan idin odhan lahaa ducaysta oo ilaahay ka baqa oo dib isugu noqda oo qabiilada aad dhibaataynaysaan joojiya oo ubadka aad dhibaataynaysaan joojiya oo dumarka aad dhibaataynaysaan joojiya intaa markaad joojisaan ilaahay nasri buu idiin soo rogayaa dalkeenna iyo dadkeennuba waa hagaagaya dunidan kale maxay ku degtay maxay ku qabowday sharci bay dejisteen saad og tihiinba dhulalkan aynu joognay wastaranka ah naag aad kufsatid iska daa ood bannaan ka soo heshay taad qabtid hadda aad xaaskaaga ah taad qabtid hadda xaaskaaga 5 carruura kuu dhashay korkeeda haddaad taabatid iyadoon habbi ku ahayn korkeeda haddaad u dhowaatid ood wax weydiisid iyadoon habbi ahayn jeel baad gelaysaa soomayd ogi hadda waa xaaskaagii naagtaa qabtid ee xaaskaaga 5 iyo 6 carruura kuu dhashay waad ogtihiin anana waa ognahay idina waad ogtihiin hadda kufsiba layslama gaarin iyo naag kale iyo reero kale iyo naag jid laga soo watiyo gabadh jid laga dafa iyo mid luuq loo gala iyo iska badaa waa tii guriga kuu joogtay ee aad qabtay ee carruurta kuu dhashay ee xalaasha kuu ahayd ma qasbi kartid baa lagu yiri sharcigaasi bal meeshu maraya day iidunkuna ubadkii yaryaraa ee derbiyada uga dhacayeen ay dugsiyada ku qabsanayaan ay iskuullada ku qabsanayaan ay jidadka ku qabsanayaan ay guryaha ugu gelayaan baa ilaa hadda waxba ka soo saari laadeen wanaagga iyo deganaanshaha dalka aad sugaysaan muxuu yahay marka muxuu yahay waa ma jirto in our life saasaynu u balanbalsanaanaynaa saasaynu u dowlad la-aanaynaa saasaynu mid maalin walba madaxay naga guran laynoogu keenayaa sababto inagii baa madaxa iska gurayna dad ooyaya inagu dhex nool hooya inagu dhex ooyaysa carruur baa inagu dhex ooyaya qabiilo inagu dhex ooyaya wanaagga iyo sharafta iyo deganaanshaha aynu sugayno adaan kuu daayay daawanayee bal adigu sheeg deganaansho ma helaynaa anigu saan qaba jawaabteedu waa maya ma helayno marka soomaaliya ha laysdaba qabto sida ha laysu dhaamo xaqdarrada weliba bal ubadkan yaryar qabiiladan iyo haynoo dambeeyeen dumar waaweyn bal ilmaha yaryar keliya sharci ka soo saara madaxda dalku qaar baa dibadahan ka tegay sharcigana si fiican u yaqaan kuwa soomaaliya joogaana way yaqaanaan sharciga ka yaala kufsiga wuxuu yahay adduunka
haddana wax actiona ay ka bixinayaan ma jirto waa nasiib dar waa wax laga xumaado in maalin walba ilmo yar wiil yar hortiina lagu jiijiito idinkoo dawlad sheeganaya in hortiina ilmo yar lagu jiijiito waa foolxumo idina weligin degi maysaan saasaa balaayo kuwa dariskuna ay idinku soo qaxayaan haddaad sheekadan sii wadaan wallaahi labada geesahay naga xigay cadowgeena ana waynagu soo guurayaan maalinta dambe iyagooyna dhex degan baa la arkaya sababtaa cuqubaynu ku jirnaa innagii baa isdhibaataynayna innagii baa isku xoog weyn innagii baa midba mid madaxa ka guraya innagii baa cagta ismarinayna innagii baa dhashiikayaal iyo madfacyo isku adeegsanayna innagii baa isbaabi'inayna maxaa mid kale inoogu iman waay yes cadow waa inoo imanaya innagaana gacmaheena isku dullaynayna marka waxaan leeyahay anoon hadalka idinku badinayn dowladda federaalka dowlad goboleedyada sharciyada adduunka waad la socotaan waxba ha iska indha tirina waa inaad sida ugu dhaqsaha badan sharci uga soo saartaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu like-ta sheerka iyo subscribe-kana hanala dhaafina tiima miirad khatra ismuujiya idima hayo baryahan idima arag idima maqan maaqan meelaad tirtaan anigaa dhisabiir noqday for 1 year I'm sorry oon idiin soo gelgelin laakiin hadda wixii ka dambeeya insha allah waan idiin soo gelayaa sidaa iyo nabadgeliyo iyo aragti dambe oo xiiso leh